أفرت سنة سو صوت يا جعشة إن الصومالية مدحوينه ونق محمد عبد الله فرماجو maxay tahay sababta farmaajo uu taageero soo asleeda dalka uu qaban karaa dalka wax badan uu qabtaa dan uu qaban karaa maxaa kamid ah ilaa waxyaabo uu soo qabtay waxa kamid ah ciidankii uu caabiyay oo laaluushka jidaha sameynay oo lacag siiyay lacala intaan tifta kuwa kale anima taageeri marka asagan badada ku caawin asagan bas hooyo soo dhawow yaa isleedahay Soomaaliya 40 sano ee soo socota uu hogaamin karaa عبد الله محمد فرماجو محمد عبد الله فرماجو محمد عبد الله فرماجو سببته maxay tahay محمد عبد الله فرماجو taageersan محمد عبد الله فرماجو asagoo dalku burburay oo dadkiis cunay oo tiin ka baxay markuu qabsaday hawadii soo ceshay dalkii buu dhisay ciidamadii shisheeyaha iyo kuwii sokeeyaha lacag buu siiyay kuwii baqbaqtay meeluhu ka soo kiciyay maatadii buu nooleeyay dadweynihii buu nooleeyay dalkii buu xorniyadiisa soo celiyay kuwii maxaabiista ahaa buu soo ceshay oo dalkoodii keenay wax uusan qaban male hawadeennii buu noo soo ceshay shisheeyihii buu naga saaray 4 sano soo socotana asagan taageersanna oo rabnaa 4 sano soo socota marka waxaad leedahay farmaajo rabnaa ku kalaba ma rabno waa madaxweyne caadila oo dalka iyo dadka iyo dunidaba jecel oo rabto oo caadila magacaygu waa Bashiir Cabdi Ibrahim waxaad ka warantaa cidda Soomaaliya aad isleedahay 4 sano ee soo socota way hogaamin kartaa oo codkaasin lahayd bismillaah horta marka koowaad waxaan jeclahay dalka horta muddo qabalalaasay wax ku jiray waxaan jeclahay nin dalka wax u qabanayo inuu wax noqdo hadii laakiin teedii la weydiinayo xasan sheekh maxamuud ayaan dhiilaa sababta aad ku taageeraysaa xasan sheekh maxamuud noo sheeg xasan sheekh maxamuud sababta waa nin madaxweynimo hore soo maray sidoo wax u wadeena waa si hadda toos tan hadda taagan si u socoto mid ka fiican xildhibaan ahaan lahaa waxaan codka siin lahaa oon u malaynayo aqli ahaanteedii raay ahaanteeda xasan sheekh maxamuud yaan codka siin lahaa sababta xasan sheekh maxamuud aad codka siinaysaa waxaan ku siinayaa waxyaalo fara badan intuu madaxweynaha u ahaa oo qabtay yaa oo muuqdo cadeen ayaan ku siin lahaa koos waxaan ku siin lahaa festival madaxweynihii xilkiisa si wanaagsan u gutay markii la xilkiisa dhameysana si wanaag oo sharaf leh ku tanasulay intaasaan ku siinayaa tanasulad wuxuuna ku fiican yahay aad uga fiican madaxweynaha hadda joogo kasbashada bulshada iyo shacabka iyo u dhagluunaashada uu dhagluun yahay bulshada intaasaan ku taageeray kuna siiyay midaada magacaygu waa Nuuno Sheekh Nuur soo yaa taageersan tahay isleedahay codkaada siin lahayd hadii aad xilbaan ahaan lahayd waa dhawahay aad u mahadsan tahay aniga ahaanteed waxaan dhiilaa xasan sheekh maxamuud sababtoo ah xasan sheekh maxamuud wuxuu soo qabtay dalka waa la wada ogyahay daraad sanadii 5 sano la soo dhaafay waxaan isleeyahay farmaajo dooranay waxaan isleeyahay wax badan ayuu bedeli doonaa nin cusub waaye wuxuu nagu siray ra'iisul wasaare waqtiga uu ahaa ha ahaatee waxaan isleeyahay wax badan ayuu bedeli doonaa hase ahaatee muuse sameeyeen laakiin xasan sheekh maxamuud wixii uu soo qabtay ognahay xilligii 5 sano uu hore u soo hayay marka hadii loogu dari lahaa shaqadiisa uu sii socoto wax badan uu sii bedeli lahaa laakiin ha ahaatee hadda muuse sameeyeen aniga hadba xilbaan mihi laakiin haddaan xildhibaan ahaan lahaa waxaan codkayga siin lahaa xasan sheekh maxamuud xildhibaanada sharafta leh oo la doortay waxaan ka codsan lahaa aniga xiriiqa xuuteen joogaa waxaan ka codsan lahaa ninka dalka danta guud waxaan dhihi lahaa waxaa waaye xasan sheekh maxamuud madaxweynaha 40 sano ee soo socota Soomaaliya hogaaminaya ee aad jeclaan lahayd in la doorto waa kee أنا waxaan jeclaan lahaa ree ahaanteeda maxamed cabdullaahi farmaajo maxay tahay sababta dalka wax badan buu u soo qabtay dhanka ciidamada wax walba ka dhisay dalka ninkaas aan taageersana yaa taageersan tahay inuu madaxweyne noqdo Soomaaliya farmaajo taageersan maxay tahay sababta farmaajo taageersan sababta ciidamada u dhisay amni u dhisay wadanku dhisay garoonka dhalinyarta ay ku dheelaysan uu dhisay margelin buu siiyay marka hadda 40 sano soo socota farmaajo la doortay aad ku haystaa farmaajo aan taageersan 40 sano soo socota Soomaaliya yaa jeclaan lahayd in la doorto 40 soo socda waxaan taageerayaa madaxweyne farmaajo inuu noqdo madaxweyne maxay tahay sababta ku taageeraysa farmaajo waxaan ku taageerayaa waxqabad uu qabtay waxqabadkiisa carilay ka badan dalka dawladnimada tusiyay maxaabiista dhan oo adduunweynaha dhan ku xirneed madaxweyne farmaajo soo daayay dalka dhan wuu dhisay nidaam uu yeelay ninkii nidaam sameeyo oo wanaag sameeya anaga taageerina waana farmaajo aad baan ku soo dhaweynayaa jeceshahay ama hadii aad xilbaan ahaan lahayd codkaada siin lahayd bismillaah anu codkayga waxaan siin lahaa xasan sheekh maxamuud maxay tahay sababta waa nin waay araga sistamka dawladeedna yaqaano waddankan hore uga soo maamulay marka sidaa daraaddeed anaa codkaygaan siin lahaa soo dhaw yaa taageersan tahay madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo maxaad ku taageersan tahay isleedahay dalka uu qaban karaa wax walba uu qaban karaa wuxuu hore u soo qabtay uu qaban karaa